waxaa maanta dib u dhac ku yimid shirkii madasha iskaashiga ee Heritage oo maanta ka furmi lahaa magaalada Garowe caasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Xaashi ayaa shaaciyay inuu dib u dhac ku yimid shirka oo galinkii dambe ee maanta la filayay inuu furmo wuxuuna sababta ku sheegay inay tahay in xaruntii loogu talagalay in lagu qabto shirka ay qaadi weyday madaxda lagu casumay shirka madasha aragti wadaaga ee Heritage agaasimaha oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe caasimadda Puntland ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu soo jeediyay in xarunta markii hore lagu qaban lahaa shirkaas laga wareejiyo markaana waxa loo wareejiyay xarunta jaamacadda BSU ee magaalada Garowe kala agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Xaashi ayaa tilmaamay in maalinimada bari ah oo Arbaco ah uu furmi doono shirka madasha aragti wadaaga sanadlaha ah ee macadka Heritage waxaana ka qayb gali doona dad ka badan 500 oo qof kuwaasi oo lagu shirka madasha aragti wadaaga sanadlaha ee macadka Heritage waa kan agaasimaha guud ee macadka Heritage Cabdirashiid Xaashi oo ka warbixinaya shirkan wasaare ku-xigeenka dalka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa ugu mahadsantihiin ka soo qaybgalka shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay maanta waxaan rabnay inaan bilowno madashii aragti wadaaga ee macadka Heritage oo sanadkan aan u doornay inaan ku qabanno caasimadda Puntland ee Garowe iyadoo ayna host gareeyeen martigeliyeen xukuumadda iyo madaxweynaha Puntland runtii maanta aad baa shirkii looga soo qayb galay oo loo yimid loo soo xaadiray hoolkii ilaa 500 qof ku dhawaad baa noo timid marka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni markuu arkay dadkii qayb ka mid ah oo aan wali hoolka soo galin iyo hoolkii oo buuxsamay wuxuu noo soo jeediyay anaguna aan ka aqbalay inaan shirka bari aan ku furno meeshaan ka weyn oo ah idaacadda jaamacadda PSU sidaas darteed waxaan ka cudurdaaranaynaa in shirkii uu maanta hoolkii nagu yaraaday laakiin waxa la yiri wixii daahaa dhibaato ma laha madaxweynuhuna runtii wuu asiibay anagana dadkii kalena aad bay ugu farxeen in dadkii maanta yimidna shirkii ay ka soo qayb galaan kuwa kale oo aan ka soo qayb gali lahayn oo macnaha naga baaqdeen aan bari ku casuno macnaha jaamacadda BSU sidaas darteed waxaan idin sheegayaa shirkaas inuu bari noo dhici doono insha Allah tacaala dawladda Puntland iyo shacabka Puntland iyo qabanqaabiyaashan aad baan uga mahadnaqaynaa soo dhaweynta iyo sharafta iyo maxaa la yiraahdaa hirgelinta shirkan madaxdii hadda ay soo xaadirtay ama intii badnayd dadkii aan casunnay bari way noo furmi doonaa aad baa u mahadsantihiin qodobada looga hadlayo waxyaabaha saddex wax naga sheegay shirku sidaan hadda ku hadallayba waxaan rabnay inaan diiradda ku saarno arrimaha amniga sida 2025 dalkan looga sugi lahaa sidii doorasho qof iyo cod loo gaari lahaa sidii federalismkan xoogaa yara dhowtanayo loo dardargelin lahaa sida maxaa la yiraahdaa arrimo noocaas ah haddana waxaa dusha ka sii fuulay siyaasadii Soomaaliya xoogaa yara cakiran iyo doorashadii 2020kii oo runtii soo dhawaaday mas'uuliyiin baa noo yimid saddex madaxweynayaashood baa noo yimid madaxweyne Qoorqoor madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Deni oo nala jooga waxaa yimid ra'iisul wasaare ku-xigeenkii labadii aqal odayaashoodii waxaa yimid madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif waxaa yimid ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre iyo xildhibaano iyo wasiirro iyo madax badan iyo ganacsato sidaas darteed bari insha Allah tacaala odayaashaas aan u deyn doono shirka adinkuna aad baa u mahadsantihiin waxaan isku arki doonaa BSU insha Allah Soomaaliya sharci ahaan iyo sida caalamku noo arko ku meel gaarka waa ka baxnay laakiin waxyaabihii aasaaska u ahaa ku meel gaarka in laga baxo waxa weeye doorasho qof iyo cod inay dhacdo amniga dalka dawladdeena inay maamusho dastuurku inuu noo dhameystiran yahay federalismka hanaankiisa inuu aan isku waafaqsannahay inkastoo sharciyan ku meel gaarnimadii haddana amnigeena dastuurkeena iyo doorashooyinkeena iyo howlahaas aasaaska u ah in runtii dawlad muuqata aan noqono weliba laga qabiyo halkaan ugu nimid in caqli la isku weydaarsado oo xataa musharaxiinta iyo dawladda soo socota diyaariyo marka insha Allah tacaala shirka ku hal doono wixii faahfaahin aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum warahmatullahi waxa jira oo dadku inta badan ay leeyihiin shirkan waa mid marka la eego dadka siyaasiyiinta ka soo qayb galay intooda badan waa dadka ka soo jeeda dawladda hadda jirta miyaa la oran karin shirkiinu waxa uu lid ku yahay dawladnimada Soomaaliya hadda jirta waxaa la jooga ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo dawladda xukuumadda Soomaaliya matalaya waxaan la jooga gudoomiyaha aqalka sare waxaan la jooga gudoomiyaha aqalka hoose waxaan la jooga afar wasiir marka adigu bal taas soo fasir lahayn ku dheeyo kamarada raal noqon ma santahay macnaheedu miisaanka
رئيس وزراء الصومالية كحيين كيس يأفر وسير ميسان وين بيليهن لبض أقل قدومياش وده ميسان وين بيليهن مركز شركان دان كمررنا Soomaalida isugu timid madaxweynaha Soomaaliya ana waraaq u diray waa casuunay waxaan u diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ana waraaq u diray laakiin waxay noo soo direen ra'iisul wasaar ku-xigeenkii oo matali kara madaxweynaha ra'iisul wasaaraha hadda ka hor way noo soo direen inay noo soo xiraan waa mahadsantahay inka dalka gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka sharaxiinta madaxweynaha qaar ka mid ah maamulada dalka Libaano wasiiro iyo mas'uuliyiin kala duwan oo aad u badan ayaa ka qayb galaya shirka madasha macadka Heritage kuwaasi oo ku sugan magaalada Garowe caasimadda Puntland ajendaha shirka sanadkan ayaa waxa uu yahay mid diiradda lagu saari doono xasilinta dalka amni ahaan dhameystirka dastuurka qabashada doorasho qof iyo cod iyo galida nidaam federaal oo shaqeynaya kaasi oo markii ugu horeysay lagu qabanayo dalka Soomaaliya shirkan macadka Heritage ayaa markii ugu horeysay lagu qabanaya dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Garowe caasimadda Puntland amaanka guud ee magaalada Garowe caasimadda Puntland ayaa si weyn loo adkeeyay isla markaana waxa wadooyinka qaarkood lagu daadiyay ciidamo ka tirsan Puntland kuwaasi oo sugaya amniga maadaama halkaasi uu ka furmayo shirweyne caalami ah Maxamed Yuusuf Sahal Cable TV Garowe